annagu oday dhaqameed mani mustafa wuxuu joogaa meeshii uu banayn lahaa qof kastoo sharaf loo lafihiisa ixtiraamayaan maanta kale is casil lahaa oo sakaraatul kursi oo naf kor u baxaysa oo kadeedkaas dhan isla maro laa yastaahil dowlad ismaamula Soomaaliya autonomy government Soomaaliya waa finish dhul badan baan luminay wasni badan oo Itoobiya ku lahayn baan luminay immunity-gi iyo waan luminay hilib la cunayaan nahay hilib bisil yaan nahay maxaad samayn lahayd miyaad fool xumayn lahayd isaad yiri shaqadaadu waxay inaad jii qoor xumayso warqado Itoobiya lala qoray iyo loo qoray iyo ishardiga Soomaalida oo qolo kale wax lala qoro Mustafa dadku eedeysay buga mid yahay waxaan uga jeedaa mid baa wuxuu gatay saacada shaqeynay saacadan maxaad ku fulaysaa iyo wali cidaan u jeeday wax kale macna kale ma ilaahay waqti ii sheegi maysa laakiin wali cidaan rabaa shidaalka iyo khayraadiyada kale dadka Soomaalida oo su'aal qalbigooda ku jirto oon aayahooda iyo habka ay isu maamulayaan iyo habka ay isu dooranayaan iyo sayidnimada iyo taliyanimada gurigooda aan gacanta ku haysan ninna ma soo saari karo laba fulay oo BB ka tirsan iyo mid hadaagi ibarleefa oo Soomaalida meesha ku jira kuwaasa noo waxaynay annagu kolkaanu dagaal galeyn iyo kolkaanu cid heshiis la galeyn يعني قومية سومالية دول كذا الله هالجميع خليك أوجدك مجا عن نقطة ريا مجا عبون نقوى SNM يا SDF يا SBM يا USC يا SS يا S وات S وذا قبلية وأنت سوماليا وأنت من نما وأنت تشريتانا nationalism هي ideology بس وصارك أنا أقول nationalist سوماليا أو وطنية أو سكوك الصومالنا أما أو وضعنا أما يا وضعنا maalmahan waxaa jira kacdoon aad ka waraysaan maadaama hal urur halgamaya tiin shacabkan aad xornimo gaarsiisaan aad doonaysaan maalmahan waxaa jira sheekooyin iyo mudaharaadyo looga soo horjeedo xukuumadda uu hogaamiyo Mustafa Maxamed Cumar odayaal ayaa magaalada Addis Ababa jooga oo dabcan ka soo horjeeda systemka dawladda hadda ay wax ku wado dawladda federaalkaana ka dalbanaya in xukunkan Mustafa laga wareejiyo dawladdiisa arrintaas ururkiinu ما كم ديها ما كغيب غات ما أنا أوركنا حفلتي iyo kacdoonada ay dhibka waa loo geystay waa taas xubnaana way dhaqdhaqaaqyo aan la diyaarin oo caradii ka dhashay iyo cadaadintii lagu sameeyay xafladda way jiraan laakiin odayaasha hadii odayaal dhaqan weeyaan anagoon ogeyn bay meesha yimaadeen qaybna kama nihin laakiin waxaan aaminsanahay dawladda Mustafa in waqtigeedii dhamaaday in wax kasta oo wanaag iyaga u ahaa ay maanta luminayaan wax kasta oo wanaag u ah dadka ay luminayaan inay hadda argaagtan ku jiraan oo dadka si kala dilayaan oo dadka si nacas xaarayaan oo odayaasha caayayaan oo iyagii la caayayo oo la si kala dhimanayo oo xukunka isku dejinayaan oo ethics-ki iyo political ethics-ka iyo isla weynida ninka madaxdii inuu magaciisa dhowrto way taariikhdiisa dhowrto way dhoobadan kula qasanaya ugu dambaysa dadkii inay naceen buu arkaa odayaashii ugu taageero badnaa oo isagoo iyo taageersan ogeyn oo waxaan arkaa dhisaba kaga eed sheeganay marka waxay la tahay anagu oday dhaqameed mani Mustafa wuxuu joogaa meeshii uu banayn lahaa qof kastoo sharaf loo lafihiisa ixtiraamayaan maanta kale is casil lahaa hadduu geesi yahay Mustafa ama dimuqraadiya ama uu intellectual yahay is casil lahaa isagu wuxuu aaminsan yahay 7 sano wadanka joogay inuu xorriyadna sameeyay oo dimuqraadiyad deegaanka uu ka hirgeliyay wax qabadkiisuna uu muuqdo oo 7 sano waxaan hore loo arag oo aan la maqal deegaanka ay ka sameeyeen marka qof aaminsan inuu wax qabad muuqda keenay sidee uu isu casilayaa waxa la yiri sidaad isu haysatay ma tiid wasay dadku ku haystaan dadweynaha qori maxaa isaga u xirsaaray sidaan aan ahay iyo kan aan ahay iyo kii kale aan ahay dadka iyaga muraayad ku ah Soomaa markaad xil guud hayso dadka iyaga muraayad ku ah marka muraayada dadka noqonaya isagu inuu sharaxaad ku mashquulo ma hadii uu taa u soo qabto iyo haduu soo qaban maanta waxa si badanaya ka hor imaadka ka eed sheegadka calaacalka dhaliisha ka fogaanshaha nacal la sii nacahay isagana argaagtankiisa salaadiin wax ka sheegayaan salaadiin ay dacweynayaan odayaashii oo ku kacay dhalinyaradii oo ku kacday saxafiyiintii oo ka wada qacay wadanka
wax badan baan yaan ku aragnay marka qofka siyaasiga ah ee faylkiisu nadiifta yahay arrimahaasoo kale ama run ha noqdo ama ay noqonayaan marka ay ku soo furmaan xilka wuu iskaga tegaa hadduu lafihiisa ixtiraamaya Mustafa oo taariikhdiisa ixtiraamaya oo intellectuality-ga ixtiraamaya oo inuu qof xor ah oo si xorriyada u noolaada u soo noolaa aaminsan yahay inuu noolaadan maanta wuu iscasil lahaa sidii maxaa la dhahaa dhagmaanyadii intuu xukunka isku dhajiyo kolkii xaggan laga fiican haddana xaggan kaga dhego oo haddana xaggan kaga dhego oo aan lafta xafiiskeeda lagu weeraro oo xaflada lagu mashquulo oo odayaal la eriyada oo shirar khasaba la qabto oo qaba galoolgeli laga dhigo oo sakaraatul kursi oo naf kor u baxaysa oo kadeedkaas dhan isla maro laa yastaahil waay 7 sanaad soo qabatay waa xilli dheer waxaa tartay taariikhda qori dadka neutralka qori dadka balansiga qori dadka waxaa qori kii kula jiray akaan kaa jiraba marka ruuxa taariikhdiisa waxyaabuhu ku difaaco go'aamada ugu muhiimsan hadda inuu go'aan ku difaaco taariikhdiisa oo uu ka tago oo yidhaahdo dad badan baa run iyo been ba wax iga sheegaya waa idinka tegay xukunka hagaajista saasaa u fiicnaan lahaa laakiin awade nin waxaa la yidhi nin waxaa jiray goday iyo dhanaan ku noolaan jiray oo caanaa la siiyey siduu caanihii u cabasan ka maxaa isaga dayn wadaan caqli awey buu marka isku sii dhegto uun oo lugaha ku qabsato oo xagga ku qabsato dadka kooxda u dambaysana kala dhimataan ma fiicno maadaama oo aad ka war hayso deegaankii dad badanna dee aad ku leedahay adiguna sanadihii u dambeysay dhowr jeer oo kala duwanba deegaan mar walba ku ahaa waa maxay waxa aad dhihi karta maanta markii laga yimaado dee sheegaas iyo mucaaradadaas madaxweynaha iyo dowladdiisa ku kacay iyo shirarkaas sabab lagu qabanayo markii laga yimaado waxa muuqda oo maanta 1 iyo 2 iyo 3 la dhihi karo ay tahay maanta inuu Mustafa xukun ku baneeyo maxay dowlad ismaamul Soomaaliya autonomous government Soomaaliya waa finish sidee baarlamaan ma lihin maxkamadda ma lihin wasaaraduhu ma dhisto degmooyinku ma shaqeeyaan gobollada xafiis ma leh caafimaadku sax maaha waxbarashadu sax maaha systemku ma shaqeynayo waa qodob dadkii Soomaalida dib bay u noqdeen tuulo dabka qaadanaysa male waa isnaceen dowladda iyo habka u maamusha iyo habka siyaasiga loo diyaariyo iyo habka resource-ka loo diyaariyo iyo habka maamulku u dhacay yaa diyaarinaya qaarna mas-uuliyiinta ku lug lehba adiguma waxaad aragtay 2 degmo oo isku gobol ku yaalla ama 2 degmo 2 gobol ku kala yaalla oo deegaanka oo gudoomiyihii degmada iyo maleeshiyadii degmada iyo gudoomiyihii degmada iyo maleeshiyadii degmada islaynayaan is that government ha waxaad arkay xafiis degmo oo markaad gasho shimbiruhu kaa soo horboodi oo boardka oo aan 7 beri la furin أنت تدبر لفرد إسبتالله ذي أنا أرك تدبي لبعتن كون كوي لبعتن كون ميا كوي لبعتن كون أنت أو أرتي يا أنت حامو فريسات لما بقول يا وحير يا كجود خسارة كبدا أنا هايسنا ميا تقرن كرتا دول بدن بان لومينay وزن بدن oo Ethiopia ku lahayn baan luminay immunity-gi waan luminay hilib la cunayaan nahay hilib bisil yaan nahay hal xoog oo Soomaaliya oo isku urus jooxa jiray inayna jirin buu ku dagaalamay ganacsatada maamulada odayaal dhaqameed maamulada golash guurti amali shuura amali dadka Soomaaliyeed kama hayso nationhoodkii yaa sii kala daadanay maxaan ku haysanaa program male hal abuur male isu keen male midayn male kicin male vision abuurid male resource-kan maamula qandaraasyada dadka siisiya intan shilimada albaabka laga furo tigirka adhisaban laga sii qabto diyaarada hotelka inta yar privilege-ka intaas isku nabaysaa jigjigan qurxiye
jigjiga maada qurxin abiya qurxiy abiya Addis Ababa bilaabay caasimadaha kalena lagu daraa la yiri waa ognahay mashruucaas mashruuca duqa magaalada Addis Ababa bilaabay Kigali buu ka soo bilowday sawirka halka loo eegaysiyaa la yiri kililada dhan waa la qasbay it is good laakiin it's not your maiden adigu maada samayn wax deegaan ku sameeyay ma aha konton magaalo Ethiopia laga sameeyay ma xubidba si inaad qurxiso inaad ku saartaan laga bedelan marka maxaad samayn lahayd miyaad fool xumayn lahayd is that your shaqadaadu waxay inaad jigjiga qoor xumayso ya waalid wuxuu yiri waxaan dhisday xafiisyo mina dumiyaan bay ahayd shaqadu waa yaabanahay waxa dadka ugu manna sheeganayso is that right xoolahoodii Soomaa resource-koodii Soomaa lagu dhiibay maxaa kale ku samayn lahayd inta ma qasbaataa jarjar la ilaa ku gura maxaa xashish dadka caqligooda lama yeesiyaa marka haddii ay inuu jigjiga qurxiyo inuu fool xumayn haddii shaqadiisa ahaydna waan ku ammaanaynaa inoo joog laakiin haddii shaqadiisu jigjiga inuu qurxiyo ahayd jigjigan qurxiyeen yaan layla hadlin ma noqonayso shaqadan inuu jigjiga la qurxiyaa yaa la isku siiyaa ka dambeeyana jigjiga qurxiyaa lagu siin ka sii dambeeyana sidaan way inuu wax ku soo kordhiyo waxbaan ku soo kordhiyay ha yiraahdo wax qabadkiisa qofka ha sheego laakiin wax dheer oo dadka asagu ku manna sheeganayo ma noqonayo marka 7 sano madaxweynaha Mareykanka 2 jeer 8 sano la doortaa taas energy badan baad bixin wixii aad sameyn karto waad samaysay waxaad wanaajisay laakiin inaad sidii korihii kolba laan ku dhigto oo adiga dadka si kala dhimataan oo boos yar isku qabsataan oo duqeys qabsataan oo olafs qabsataan oo tuulo is qabsataan oo sidan oo kale hadda aynu noqono niyadjabka iyo daalka iyo wixiga la yasaahid dadka madaxda ee taariikhda jecel ee magacooda jecel ee magaca qowmiyadoodana jecel sidaas oo kale ma yeelaan hadda waxaad aaminsantahay marka mudana afyeen xilligii deegaanka madaxweyne Mustafa Bannayn lahayn ay taagan qaanuun si nidaam uu baneeyay moralka dadka uu ka dhintay way maskax dadka Soomaalida Mustafa inuu bedelay hadda aaminsan yihiin in la bedelay inay waajib tahay inuu aaminsan yihiin marka xagga niyadda uu ka bedelan yahay physicalku uu soo wali meesha dhaafay marka waxay la tahay inuu asaguna ha u sahlo dadka Soomaaliduna iyaguna isku mashquul tartiib inta ay u tashadaan ninka ay waanu ku dacaynay waxaad qaban kartaa waad qabatay iska nasaadaan si sharaf leh oo degan ha u doortaan qof wixii ka daadaatay ka xumaaday u soo ururin kara hadda maalin dhaweeyay adsab wuxuu ka sheegay hadal si u maldahan wuxuu yiri inaad 40 sano ama 30 sano ka hor meesha taagneed aad wali taagan tahay ku duqood waa ku ceeb dadkan warqadaha intaan la qoro xabsida la geyn jiray baa wali meeshii sii taagan oo inay warqado qoraan xabsidii adsab ay ku ruureeystaan wali sii wada arintaas ee warqad hadalka warqado Ethiopia la qoriyo loo qori iyo ishardiga Soomaalida oo qolo kale wax la qoro Mustafa dadku eedeysay mugamidiyay Soomaaliga marka dadku maxay samayn lahayn marka mina dhintaan baa qaar badan oo bariga u sheegay noola way dhintaan qaar kalena way ku xigaan this is a natural process way marka asoo ka sheegta ma taas 40 kaas uu la qoriyay Soomaaliya kolkii wax Soomaali baa isdacweynayso wax qoraysa la lahaa dadka hadda meeshan aan ka sheegno doonayo dadka record-ka laga hayo eedaha farta lagu fiiqo dadka xoogaalka ay ku fiiqaan uu ka mid yahay marka in la iska daayaan waa wax fiican dadku inuu ku waaniyaan wax fiican laakiin dadka laguma qasbo iyaguna inay cidiha ku dagaalamaan haday ku dhahan waad u yaraagtay iska tag haduu iska tago in la dacweeyo oo la cargaagtamo oo la xanaaqo oo xuduudaha qaar la jaro inuu dadku kalifa maahay wuxuu rabaa inuu waxba dhageysan oo san waxba bedelin oo san iyagu u hoggaansamin oo nin baa meesha keenay oo lagama qaadi karayaa ninkiina looma kici karayaa haddaad space u samayn lahaa space kaas ku hardami lahayd haddaad space ka xidhato oo tiaadaan meel baa laga soo magacaabay meesha bay ku doomarayaan culture-kan isagaa sameeyey dadkii kula talinaya baanu ahayn ruux ka dambeeya adiga yaan linoo soo magacaabay system aynu inagu leenahay ha samaysmo oo madaxda ku timaado ay ku tagto marka systemka inuu yimaado ma rabo
kii ku yimid in lagaga damiyo haddana ma rabo marka meesha aan joogi wey soo ma kaama yeelayaan dadku dee waa hagaag maalmo dhaweyto waxaa la sameeyey qaab dhismeedka deegaanka wax laga bedelay 4 gobol wax lagu sheego in weli la kala magacaabin baa la sameeyey ilaa iyo dhowr iyo 10 degmo haddaysan 10 degmo ka badnayn baa la sameeyey in 30 wax ku dhow oo ismaamul magaalooyin bay dowladdu ku dhawaaqday qaab dhismeedkan cusub ee dowladdu ay hadda samaysay ururkiina siduu u arkaa horta qaab dhismeedka aad nooguma caddo oo kolba wuxun baa laga bedelayaa oo waxaa batay hadalkiisa marka daraasad sax ah in lagu sameeyo u baahan tahay anaguna waan mashquulsanayn waan ku sameynaa insha Allah laakiin qaab dhismeedka intaan waxba ka sheegin kii hore inoo jiray manficiisa yar ka kala muxuu soo kordhin doonaa talo 2021 waagi doorashooyinka socdeen ayaan gobolada maray waxaa igu yaabadneed intaasoo magaalo madax gobol oo biyo lahayn baan maray marka gobolkaas meeshii laga maamulay markay biyo lahayn degmooyinka hoosigood baxad u malay matalan gobolka nago baan maray in yar oo degmada Cayuun ah iyo wadda ka marta degmada Cayuun markaad shabeelle ka baxday aad marayso meesha la yiraahdo maxay markaad guris dhaafto eed gasho area ay maamusho magaalada la yiraahdo Cayuun ilaa aad xamaro maamulkeeda ka gaarayso intaas gobolkana waa dhan waddo kale intii ka dambeysay waxaan manayn waddo soo gashay sagag ma dhamaanaysa intii dhagaxmadow ka timid nafta naqabatay dhagaxmadow iyo sagag dhexdo wali waa sidii tii dhagaxmadow 7 degmo ee gobolka nago degmo waddo ku xidhan male degmo quro oo biyelana male degmo koronto haysat male degmo isbitaal macna leh male marka daraasad baan ku sameynaa insha Allah si urura inaan iska hadlo ma doonayo si ururaan uga hadlaynaa ana laakiin markan conceptiga guud ka hadlo magac iyo manfac ba kala jira Soomaa dadka lama horumarin kara miya iyagu tuulo joogo iskuul iyo dhakhtar iyo baashi ma keeni karto miya gobol markaad u keento in wuxuu u qalmo oo service yimaado oo caafimaad iyo baxay iyo saxaafad iyo bahalkii iyo waxbarasho iyo aqoon iyo infrastructure wuxuu soo kordhiyay Soomaa gobolada dhan iska saasaan leedahay gobolka city meelaad martaba heli mayso gobolka nago meelaad martaba heli mayso gobolka liibaan jidadka waa diyaabi gobolka afdheer waa diyaabi gobolkan erer waa diyaabi marka maxaa gobolada aad u maray kuwan ciiddeed dhulka siman ku nool jarar iyo qorraxay iyo wadooyin waxa baabuurta iska martaabad mari moogta kuwa kale saad ka dhaca ka deg boor taayirada ka qarxaan ee naftu ku qabanaysa marka maxaan inagu waliicdaan uga jeednaa waxaan uga jeed mid baa wuxuu gatay saacada shaqeyneen saacadan maxaad ku fulaysaa iyo waliicdaan u jeeday wax kale macna kale ma ilaahay waqti ii sheegi maysa laakiin waliicdaan rabaa inaga magacaas haddaan magac gobolada iska rabno laakiin intaan ogahay structure-yadii aan sameynay manfaciye waaweyn kuma jiraan kolka intaan baan ku dari lahaa waana ka soo saari doonaa ra'yigana kuwa laakiin weliba kuwa meelo xuduudaha oo waxaa jira aad muhiim u ah dadkeena in lagu nagaado oo infrastructure iyo dhaqaale iyo wax laakiin uu daba socdo waxaas inuu daba socdo marka waan dirti doonaa ra'yina waan ka soo saaraynaa ma isleedahay dowladdiisa ka horeysay Cabdi Maxamed Cumar xilligiisan oo kale lagu kacay oo shacabku ay ku kaceen oo nuux badan ay soo baxdo warar badan soo baxday wax ka badan 90 degmo hal mar la magacaabay ma isleedahay marka tanati oo kale noqon doontaayo waa wuxuu isleeyahay shacabka taageero kaga raadi maadaama hadda aysan haysan way waqti horta sidaa tahay waxa weeye dad badan baana sheegay markii hadda shaqadan soo baxday waa xilligii oo kale markii xilligan la gaaro waxa la sameeyaa yaa leeyahay marka isu ekaado way jirtaa anigu waa ila tahay xilli ay sidan ka deganeed oo siyaasaddu sidan ka deganeed oo maamulkoodu sidan ka deganaa iyo ahad inay soo saaraan xilli yar jiro board iyo qiiq fara badan iyo ku soo hagaagay kolka ku dardarista iyo ka shakiga uu badanaya marka dad badan oo mufassiri maxaa la dadka
wax muraaqabeeya ama indheeya dadka wax indheeya waxay leeyihiin waa xilligii sakaraatul kursiga xilligiisa waa lagu yaqaanaa in degmooyin iyo wax la sameeyo oo si ay shanqar badan u yeedho marka waad moodaa waa soo gabagabaynaynaa arrinta musuqa deegaanka ka warran oo aad iyadana loo hadalay niyow arrintaas inay jirto waxaad ku garanaysaa jileeca dowladda ka muuqda iyo xafiisyada dowladda markaad tagto sidayna dadku ayna restricted u ahayn wasiirku iska maqnaanayo wuxuu doono samaynayo xafiiska ruuxaad uga baahnayd aad waayeyso degmada aad ka waayi dowladda hoose aad waayi wax waraaq kuu siixaad waayi waa laysdaba ordi uun mushaharka ummadda magaceeda lagu qaato timeka dadka laga kiraystay ma siiyaan marka taasoo corruption ma iyadu hantida maxaad u malaynaysaa marka ninka waktiga dadka iyo xooggii laga kiraystay kala tegahaya hantida u hayana wuu kala tegi marka afrikaanada iyo etoobiyaanka iyo kulli iyaguna corruption way leeyihin corruption waan hubaa laakiin degmad walba mitir magaalo walba iyo tuulo iyo wasaarad walba mitirka intuu dhan yahay ma saari karo laakiin waan hubaa inuu corruption jiro وهاجا ودنبنتي دوان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وحوش شيء هذا مدى الصومالية أي آد سوي دي سي وحو كلاوه وحيري مركان دور مرة كلا دوان من ديان كصومالية بقضي دور كان مرة كلا دوان من ديان كصومالية بقضي مشاريع هرمرناد وأي كم ديهم كوا بيرو عن حركة كجر إيه نظام نوعاز كجر لكن قرشها عن أتبي ديان كصومالية يجي كاس ما هين وكبتنا oo intaas waxaan ku hawlanay inaan soo saarno shidaalka iyo gaaska ku jira deegaanka Soomaalida hawshiina waan dhamaynay waxaan arinta u sameeynay uu ku sii daray in ay jiraan dad cadow Itoobiya ku oo doonaya oo aan doonayn shidaalkaas wax la soo saaro dad badan idinka ay farta idinku soo fiiqeen dadka cadowga la sheegay horta hadalka Abiy Ahmed ka soo baxay sidoo aragteen qaabku idin la dhigay dadka dhan baa la yaabay anaguna waan la yaabana waxa weeye hadii dalka annaga iska leh marka ruux cadow ii yaqaan ay soo weerarso midda kale shidaalka iyo khayraadiyada kale dadka Soomaalida oo su'aal qalbigooda ku jirto oon aayahooda iyo habka ay isu maamulayaan iyo habka ay isu dooranayaan iyo sayidnimada iyo taliyanimada gurigooda aan gacanta ku haysan ninna ma soo saari karo baan ku celinayaa haddaanan sayidka ahayn jigjiga oonan ka ahayn goday oonan ninkaa rabna dooran karin oo aanan saamayn ku lahayn dowladda Itoobiya oo khayraadka aanan maamulayn wax soo saaraya ma jiro ama dhuunta ama helicopter ku taga ama baashi ku taga that's why ku kaacaan inuu qaado shacbi baa iska leh baasha su'aalo badan buu qabaa dulmi badan buu dareemayaa marginalization badan buu dareemayaa marka waanu ku celinaynaa Etoobiyana haddana waan u sheegnay iyaduna way og tahay dadkaas oon iyagu sayid ka noqon hawshaas oon lagala tashan oo inay leeyihiin aan dareensanayn wax soo saari kara ma jiro waka arrintaas in ay shacabku ogaan waayaan waaba la gartay oo duruufo kala iskaga xeeran hawshaas shaqadeedu inay socotay oo kamaniyaashaasi ay joogeen oo ceelashii la qoday ururkoona lafsagu muxuu ogaan waayay waan ka hadalnay in bishii September 2024 iyo August bay bilaabeen campaign-ka waan ogeyn Twitter waan ka qoray dawladda Itoobiya waan kala hadalnay diblomaasiyiin caalami waan kala hadalnay saxaafadeena localka waan kaga hadalnay waan ka sii saadaalnay waan ka sii dignay waan ka sii eed sheeganay waan ka sii xalaacalnay idinka martay malaha waan ka hadalnay marka waan dareemaynaa laakiin wax dhowna ma aha hadda wax dhaqso loo soo saari karo ma aha wax ka badan buu u baahan yahay dadkan iyo ururka ONLF iyo shacbigan iyo ismaamulkan in arrintan lagala tashado oo iyagu gacanta ku qabsadaan oo sayid ka noqdaan bidoonaya laba fulay oo BB ka tirsan iyo mid hadaagi ibaarleefa oo Soomaaliya meesha ku jira kuwaasa noo waxaynay wax shaqeynaya ma shacbi baa iska leh 15 milyan from Dawanle to Mooyaala inay dareemaan inay iyagu sayid yihiin mooyaan cid iska dhurdhuran kartaa ma jirto ugu dambeyntii waxaa jirta xoog kale oo soo baxayso oo Soomaalidu waxay tiraahdaa leexantii ma mooga jabhado sidoo kale Itoobiya hadda ka dhaqaaqa ola kamida faana kamida TPLF oo dib u soo laba kacaysa baa kamida shalay magaalo ka tirsan gobolka Tigray waxay heshiis ku wada gaaray faana iyo TPLF inay si wada jir ay dawladda ula dagaalamaan warar waxaa soo baxaya in ONLF ay shirar hoose la yeelatay jabhadahaas ama inay wada shaqeyn la samayso ama inay dhinacooda deegaanka Soomaalida hawlgaliyo wax ka fuliso arrintaas maxaa ka jira
waxaas waa camal sheekada xukuumadda dowlad deegaanka arrimahay fabrikeed gelisa wey annagu kolkaanu dagaal gelayn iyo kolkaanu cid heshiis la gelin annagay naga soo go'i qarina mayno allahuma mustacaan ilaa iyo haddana dadka iyagii annagu inaan nabad ku halganaanu doonayna marka waa gacan ku samays wey wararkaas waxaanu samaynayno ma qarsanno marka waxaad leedahay annagu talada aan ku dhaqaaqayno xagganagun bay ka iman naloo go'aamin maayo cid kale danihiisa cid kale nagu fushan mayso nina awr ooma kicino awraan dantanada aanaan u arag danta ummaddanada ma kicino aragti kaloo waxaa jirta maadaama etoobiya hadda 3 gees oo ka mid ay qiiqayso oo weliba 3dii ugu awood badnaa ay tahay markii loo fiiriyo xabashi iyo tigray iyo oromo dad badan baa waxay qabaan aragti ah fursaddii shalay dhaaftay onalif markii soo xaroonaysay inay maanta si oo kala haysato oo deegaanka hadday jabhad ka bilowdo etoobiya culays badan ku keeni karto arrintaasi mayna idin muuqan idinka mar kasta markay etoobiya ugu xoog badnay 94 yaan dagaal ku keennay intaan culays ku keennay iyo weliba adhaxda ka daacday mar kasta oon dagaalano annagu culays way keenaysaa marka marxaladdan ma aha marka ay nalagu kalifo nabaddu waddo weydo ee qalinkanagu waddo waayo ee shacbiganagu ka soo xidhma albaabka ee ay dagaalamana dhahaan yaanu dagaalano marka ugu dambeyntii waa mahadsantahay mudan afhayeen waa soo gabagabaynaynaa waxaa jira wararku waa iska badan yihiin dowladdu lug bay idinku leedahay garab kale waa idinka jabay idinkii waa joogtaan waxa intaas oo ugu badan la raadinayana waxaa weeye in gacanta lagu dhigo shacabka ururka onalif taageersan ee dal iyo dibadba jooga fariinta maanta qofka onalif ka tirsan soo dagaalamay dagaalku keliya un maayna qori qaadee maskax iyo fikir iyo lacagba ku bixiyey ee maanta waxoogaa niyad jabsan oo isla meeshii aad ka rabtay onalif ma taagna fariinta aad halkan uga dirayso aad usoo gabagabeyn barnaamijka maxay waxaa weeye rajo aad u weyn baanu leenahay meel aad u fiican oo marayna marxalad fool ah oo leena burayn oo bahalkii maamulka deegaanka inagu soo jeedsaday oo saaxiibadan leeno adeegsanay dis marxalad weyn laakiin marxalada ka adag baan soo maray ka dhib badan baan soo maray guulo badanna waa inoo muuqdaan duruufo badanna waa isbedelaya etoobiyana iska bedelayaan iyadaa dhiirinaysa oo inagaa hore u socon oo onalef maanta ay ugu taageero badan tahay halgankeenana waan dhoojinaynaa midnimana wuu yeelanayaa ruuxii waddada ka leexdana hadduu aad u weynaa onalef dhexdeeda iyo hadduu aad u yaraa markuu waddada ka leexdo waddada onalef mabaadi'da iyo ujeeddada iyo taariikhda iyo cultureka siyaasiga qofka iyo dhaqanka uu la imanayo iyo go'aamadu qaadanayo iyo mawaaqiftu ka qaadanaya aaya ka talinta aayaha ummadda midnimada xorriyadda ismaamulidda jiritaankeenna qofku go'aamadu ka qaadanaya iyo onalifnimadiisa ku xidhan tahay marka dadkanaga waaye aragnimo la'aan ma hayso in badan oo onalifooda magacooda ay aad u maqleen yaa cadowga u gashay marka maanta shacbi iyo xubno iyo kaadir tiro badan oo isku kalsoon oo isku duuban oo qadiyaddii gacanta ku haya oo dibad iyo gudaba jooga oo tuulo walba jooga oo etoobiya la dhiilgarayn oo ummadeenna midayn doona oo aayaheenna raad ku yeelan doona oon sinan loo riixi karin baa jooga welwelkaa la iska daaya taageerana waxaa kale oo geesinimana lagu daro onalif bay ahaan lagu yidhaahdo xisbiga BB-du wuu wareersan yahay waxay hortaa jiraa waaye baa layidhi waxaa qolyihii ka horreeyay kari waayeen bay in onalef laylyan oo jeebkeedoo la eg la sameey wax dhacaya ma aha qoladan hadda sii socod kolkay tagtana haayar bay onalefteenu afkiisa saari wax dhiboo jiraana ma jiro la haystanimada markaa waa laga bixi insha allahu meel fiican baan maraynaa dadkeenana wacyigiisu waana la isbaranaya mawaaqif qoladan han yar u bixin haddun bay caddaatay talo maxay samayn doonaan in yaroo guulwadayaal oo dowlad deegaanku soo hor ordaysa oo lafta hala xidhiidhaysa inay yihiin dadku waagii hore mayna rumaysteen niman aan wax badanna ka midaysan mabaadi'a waxaana ku kala duwanaha loo haystay way caddahay marka guushu way dhowdahay waxa lagu niyad jabaa ma jiro marxaladahan ummadaha mara keligeen ma aha way ka wada dhexbaxeen dadka guulaysta wixii dagaalka kaga dhintayna khasaaraha dagaalka la dhaha horaa loo soconaya guushana waan gaadhayna marka waxaad leedahay cagaha dhulka ku sii haya guulo badanna waan dareensahaa way soo socdaan dad badan oo Soomaaliyeed oo ururkana taageersan baa marar badan shaki ka keena isaga laftirkiisa magac ogaadeen oo aad u isticmaashaan dadka iyagana fariinta u diraysa maxay tahay
ogaadeen sibsiri magaca ogaadeen waa Soomaali Ethiopia ma صح Ethiopia dalkeena ma siinay wuu ka reebaya صح Soomaali galbeed wuu ka reebaysa Soomaali state dhulkeena kulli waa magac Soomaaliyeed صح qof haddaad aragto wax dhibsanay yani qowmiyad Soomaali iyo dhulkeeda loo halgamaya qabiilka ogaadeenka magacan muxuu taraya wax la wuxuu taraya ma jiro bal qabiilka ogaadeenka magacan muxuu ka faa'iiday wax la wuxuu ka faa'iiday ma jiro qolada kale muxuu khasaare u leeyahay wax la wuxuu khasaare u leeyahay ma jiro markii dhulkeena la qaybinayay ee Soomaali British Somaliland loo bixiyay Italian Somaliland loo bixiyay halkan ogaadeen loo bixiyay North Eastern District meesha markii North Front District NFD markii loo bixinay magacyo sidaa ku baxeen way dad Soomaali ah magacyo dad Soomaali marka ruuxa dhibsan karila gumaysiga Ethiopia ee Soomaali dal gooni ama yeelan karta leh shacbiga Soomaaliyeed ma midoobi kara leh Soomaali state iyo Soomaali galbeed ogaadeen ma xoroobi kara ruuxa aan dhibsanayn ee magac ogaadeen la qaloocan yahay mid kalena ka soo tag magacyadii Soomaalida madaahir bay ahaayeen jamhuuriyadda Soomaaliya magacyadii dubiyay soo ma garanaysa es bay ahaayeen esnimadu qofku maxaa al-iimaan haa huna xadiiskii sheeg iimaanku waa qalbi waa qalbiga magac buu noqon waayay SNM iyo SDF iyo SBM iyo USC iyo SS iyo what es wada qabali ah oo anti Soomaali ah oo anti midnimo ah oo anti jiritaan ah oo anti sharaf ah yahay markaanu 41 sano anagu sharafta Soomaaliya difaacay waa Soomaali Ethiopia nama gumaysan karto waanu xoroobi ayahanu ka tashayna Soomaali baan la yahay nin Soomaali baa lahaa un SS baa la dhahayo reebel baa ya waxan marka dadku inay conceptiga in la qiimeeyo way annaga waxaan nahay urur Soomaaliya oo nationalist ah oo waliba xaq jira oo qadiyada Soomaalinimada iyo midnimada Soomaalida iyo xorriyadooda iyo karaamadooda geeska Afrika ay la weyntahay nationalism iyo ideology baa soo saari kara annagu nationalist Soomaaliya oo watani ah oo isku kalsoon baana ama oo aan wadano ama ya wadano laakiin midka asta wata qabyaalada sida baasiinka dulmo gubanay iska daayo dadka Soomaaliyeed dad walaalaha oo isku isil ah oo isku ab ah oo isku deegaan ah oo isku taariikh ah oo isku maslaxa oo isku dhiig ah oo isku hidda ah oo isku diin ah oo isku madhab oo isku bidaan ah oo isku asal ah oo isku abtir ah way ninka inta wax ka dhaxdeedaya qoonsanaya wuxuu u baahan yahay inuu isaga dib tababar u galo lafihiisa inuu soo daweeyo annagu waan ka weynaanay taas shacbiga Soomaaliyeed oo dhan inuu aaneystaan dooni aan aaneysto sida way annagu kala jarkanay aad iyo aad baad mahadsantahay mudane afhayeen waa kaaga mahadcelinaya waqtiga qaaliga aad iyo aad baad mahadsantahay